وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأمر مرتيد حزب وطني وكهد ليا خلاف الدبلوماسيات إدارة عربته يحرير كسومالي لان يدول الدجان كسومالي إثيوبيا حزب وطني وحامن سيهاي إلا وناجيو حرير كدبلوماسيات أنو نلا نهاي دلالك أنو شارك نهاي جامعة عربته دلالك إسلامك يجود هام بقى دنيا ذكلا أنو كميت كنهاي قرنيان كوبي لوطنات دلالك أدونك waxa khilaaf ka dhax bilaabma waxa ku dhameystaan wada hadal diblomaasiyadeed iyo nabad Soomaaliland waxay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan dalalka Carabta la wadaagtaa xiriir ganacsi iyo walaalnimo oo taariikhi ah wixii colaadana xal uma aragno dalalka Islaamka dhexdiisa isbeddelka diblomaasiyadeed يا دون كسر عصبون هذا وحقوقان كذا يجي هذا اللي راعيه وجم مسؤول قرن كان سومالي لان مدحوينا أحمد محمد سيلانيو يسوق أمضة وجو وكيلة إنه راديو كل بهالكي دنتا قرن كيسو كجرتو دانك كلا دين عن كلا دولة ديجانك سومالي إثيوبيا يسومالي لان وحكده حياة دان ضد يدونيو waxaynu nahay isku nool wixii eeda ah iyo deelqaafna waxaanu aragnaa in laga daayo xukuumadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inay wada hadal iyo safgarad ku xaliso wixii madmadow ah ee ka dhasha xuduudka iyo isu socodka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya waxaan ku nuuxnuuxsanayaa cid kale oo arinta u xil saaran on xukuumadda Soomaaliland ahayn inay wanaajiso xiriirka oo ay ka hadasho ashxaas dibadda ka hadashayna inay farageliso xiriirka aanu leenahay deegaanka dawladda Itoobiya maaha waxaanu leenahay safaaradaynu isdhaafsanay waxaanu leenahay wasaaradda arrimaha dibadda wada xiriira waxa wada xiriira wasaaradda arrimaha gudaha waxa wada xiriira hay'adii nabadgelyada waday ciidanka tahay haday booliiska tahay haday ciidamada sirdoonka tahay intaasba wada xiriiraan marka xiriirada channelska rasmiga ah ayaa wixii madmadowga ay soo socodka iyo xuduudka ka yimaada ka mas'uulayna ka wada hadlaan ee ashxaas meelaha ka hadashay oo ama yaani cod ku doonatay ama wax kale ku raadinaysa inay farageliso maaha waxa kale oo ayaaban soo cusboonaya arin la xaliyay oo ahayd in xisbiga wadani lagu xoqo Soomaali weyn arintaana waa ogeydeen arintii fake news ee la sameeyay ee la yiri madaxda xisbiga waxay la kulantay prime ministerkii hore ee Soomaaliya waxaad moodaa maanta tii laga heshiiyay leeyaan la soo qaadin ee apology-na laga bixiyay in maanta warbaahinta xukuumaddu adeegsataa ay dib u soo cusboonaysiinayaan oo xoqayaan haddii heshiiskaasi jabo oo ka waantoobi waayaanna taado qololiba waxa xoqda way haysaa annagoo u turayna annagoo qarankan iyo dadkan nabadgelyada iyo deganaanshaha waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Axmed Maxamed Siiraan Garwaka ka yahay iyo saxaafadda adeegsataaba in arinta laga bogsaday aanay soo cusboonaysiin ee fake news ka beenta ah aan cod lagu doonan xisbigan wadani cid uga lex jecel badan Soomaaliland ma jirto waxaanu rajaynaynaa inaanu annagu kuwa xukunka yimaado noqono annagu kursigii u sareeyay u soo soconnaa inaanu cid u dhukusnaadeen ma shaqo jirtaba cid dhukusaysa oo cid aan isku kalsoonayn ee doonaysa inay xisbiga inay xukunka ku sii joogto sifaan sharciga ahayn ama sifaan sharciga ahayn xisbi ku timaado xukunka marka waxaan uga digaynaa in laga waantoobo oo laga daayo dacaayada raqiiska ee hore loogu fashilmay ee ogteen photoshopkii la sugeeyay ee soo baxday sida ku timi hadii laga waantoobi waayana de wixii nala gudboon baanu yeelaynaa dadkii dhaxdhaxaadinta sameeyeen waxaan u sheegnay in arinta ay dib ugu soo noqdaan oo ka waaniyaan oo yiraahdaan war waxa cod lagu ma doontay cod waxa lagu helaa barnaamij iyo wax qabad ayaa lagu helaa ka waantooba